Assalaamu calaykum. Waxaan noo socdaa casharkeenii labaad ayaan bilaabaynaa. Waxa u soo qaadanay Python casharka ka horreeyay waxyaaba uu yahay iyo programming language halkan ayuu noo joogay. Casharkeena xiga ayaa bilaabi doonaa. Soo dhawaada. Casharkeena wuxuu ka bilaaban doonaa halkan. Waxaa hore usoo qaadanay Python muxuu yahay waxyaabahaas ka soo hadalnay. Hadda waxaa ka bilaabi doonaa maxaa Python u isticmaalnaa marka. Python markaa baranayno waxyaabaha Python aan u isticmaalin waxay tahay halkan ardayda su'aalo badan ayay iga soo weydiiyeen markay Python course iska soo diiwaangelinayeen. Python maxaa lagu bartaa? Python maxaa lagu bartaa? Python maxaan ku noqon karaa? Waxyaabahaas oo dhan halkan casharka ayaa ku kala baran doontaa. Python marka laga hadlayo saa hore usoo qeexnay Python waa programming language ugu caansan waa most programming languageska ugu caansan waa weliba most ah caalamka maanta la jooga. Sidoo kale Python dadka isticmaala userskeeda ama user basekeeda waa mid si joogto ah u sii kobcaya markaas constantly growing waaye mid si joogto ah u sii siyaadaya maalin maalin kadib dadka Python kusoo biiraya ee baranaya way sii badanayaan. sidaas daraadeed marka Python marka waxyaaba loo isticmaalana way sii badanayaan. Python intaas ha ahaatee Python maxaa loo isticmaalaa markaas aan diiradda saarno. Python waxaa loo isticmaalaa analyzing data ayaa loo isticmaalaa taxliilinta daatada ayaa loo isticmaalaa Pythoniska. Sidoo kale Python waxaa loo isticmaalaa in lagu dhiso machine learning in lagu dhiso iyo sidoo kale moduleska in lagu dhiso ayaa loo isticmaalaa. Sidoo kale waxaa loo isticmaalaa Pythoniska in lagu dhiso website-yada web development-ga. Sidoo kale Python waxaa loo isticmaalaa syntax script waxaa loo yaqaano ama system script waxaa loo yaqaano systemyada oo scriptyada systemyada lagu hagaajiyo sidoo kale cyber security waxyaabahaas oo dhan lagu hagaajiyo iyo automationska waxyaabahaas dhan ayaa loo isticmaalaa system scriptgaas. Halka marka waxaa ku baran doonaa marka su'aal weyn ah Python ayaa rabaa inaad barto arday inta badan isweydiinaysaa intee in lag ayay ugu qaadan kartaa marka Pythoniska inaad barto. Way kala horeysaa marka Pythoniska arday inta badan waxay ku wareerayaan asagoo weligii Python hore u arkin wuxuu ku dhahayaa full stack Python aan rabaa. Sidoo kale web development aan rabaa machine learning ama waxyaaba data science marka way kala horeeyaan marka anaga hadda koorseen waxaa ku baran doontaa Python programming language basic of programming languageska. Waxaan baran doonaa marka aasaaska Python mar aasaaska aad baratid oo ku fahamtid waxaa dhan waxay ku shaqeeyaan marka aasaaska aad soo barata ay ku shaqeeyaan haddii aad noqon lahayd data analysis haddii noqon lahayd web development machine learning haddii noqonaysid AI haddii noqonaysid advanced data science full stack development ama full stack developer haddii noqonaysid waxyaabaha dhan waxay quseeyaan marka in aad Python basic aad soo qaadatid marka koorsada marka mid kasta muddada kaa bixi karto inaad ku takhasustid ayaa halkan kusoo koobnay. Ugu horreyn koorsada waxaa ku baran doontaa Python basic syntax ayaa baran doontaa programming conceptiga guud ee programming languageska iyo syntaxkooda iyo qaabka loo qoro iyo si u shaqeeyo ayaa baran doontaa. Waxaa lagu bartaa muddo bil ilaa 2 bil ayaa lagu bartaa qaybtaas koorsadaas. Sidoo kale waxyaabaha ku baran doonta ugu waaweyn waxaa kamid ah Python basic aasaaska basic ayaa baraysaa sida syntaxka variable loops functions oops waxyaabahaas oo dhan ayaa ku baran doontaa. Data analysis hadaa baranaysid sidoo kale data analysis waxaa lagu bartaa 1 ilaa 2 bil waayo haddii aad horey usoo barato waa Python basic aad taqaanid fundamental Python aad taqaanid data analysis 1 ilaa 2 bil ay kugu qaadanaysaa. Waxaa lagu baranayaa marka data waxa loo yaqaano manipulationska data in wax laga bedelo oo qaabka data u ka kooban tahay in wax laga bedelo duplicate waxyaabaha data in datooyinka waaweynka waa data weyn marka lagu dhibo systemyada ayaa lagu sameeyaa manipulationska analyzing in lagu taxliiliyo datada ayadoo la isticmaalayo library hadda waxaa sheegnay Python inay tahay library badan ay leedahay many libraries ay leedahay library waxaa la maktabado waaweyn oo hore loo diyaariyay kood hore loo diyaariyay platforms diyaarsan waaye oo ku qabanaya marka shaqo markaas hadda librarygan oo pandaska iyo librarygan numpy waxaa loo isticmaalaa data analyzing iyo data science ayaa loo isticmaalaa. Sidoo kale haddaa Python hore usoo baratay sidoo kale waxaa baran kartaa web development Python adoo baranayo 3 bil ilaa 4 bil kugu qaadanaysaa laakiin haddaadan Python hore usoo baran way kugu badanaysaa waqti ay kugu qaadanayso course marka web development loogu talagalay haddaadan Python basic aqoon ma la qabsan kartid waa ku dawaqaysaa sababtoo advanced waxaa ku baranaysaa 3 bil ilaa 4 bil waxaa la dhisayaa marka website-yada la dhisayaa iyadoo la isticmaalayo sidoo kale library-yadan ama framework-gan Django iyo Flask mid kamid ah ku takhasusi doonta ama Django dooranaysa ama Flask
walow dadka beginnerka lagula taliyo inay flaska bartaan kadib markaa jank usii wareegaan machine learning ayaa jira iyo AIska 4 bil iyo 6 bil lagu bartaa waxaa baranaysa waxay tahay ML machine learning ayaa baranaysa algorithm ayaa baranaysa sidoo kale adoo isticmaalayo waxa loo yaqaan skit line platform kala dhaho ama library-ga Python ayaa ku baran doontaa machine learning-ka iyo AI wax la xiriira sidoo kale advanced data science ayaa jira data science-ka data analysis way kala duwan yihiin ayna 4 bil ilaa 5 bil ayaa lagu bartaa waxaa baranaysaa deep learning wax la ayaa baranaysaa oo data gudaha in loo sii galo adoo isticmaalayo kuwan deep learning kan platformyadan ama sidoo kale library-yadan Python ay leedahay TensorFlow midka lahay iyo PyTorch adoo isticmaalaya mid kamid ayaa baran doontaa sidoo kale ugu dambeyn full stack development ayaa jira haddaa rabtid Python full stack developer aad noqon kartaa 6 bil ayaa lagu noqdaa haddii aad marka Python hore usoo baratay programming aad fahamsan tahay waxaa baran doontaa marka complete back end ayaa baran doontaa sidoo kale front end ayaa baran doontaa oo loo adeegsado qaybta web development-ga front end-geeda ayaa loo adeegsadaa iyo Python back end-ga adoo adeegsanayo database-yada SQL waxaas hore usoo baratay waxaas oo dhan la isku dara waxaa la full stack developer ama full stack engineer la dhahaa marka halka marka waxaa kugu cad marka road mapka Python haddaa rabtid inaad mustaqbalka yeelatid intaan takhasuska meesha hadda ka bilaabayso waa joogtaa koorsan haddaa baranaysid nagasti waxaa baran kartaa marka xirfadahaas kale takhasuskaada kasii dhigi kartaa hadda waxay ku xirantahay wax suuqa damaanad ama demand ka jira marka laakiin meel kasta waxaa looga baahan yahay Python developer inaad tahay Python developer inaad tahay waxaana inaad taqaanid maaha waa inaad taqaanaa syntax-ka programming-kan suu u shaqeeyo concept-geeda basic-geeda waxaas inaad taqaanid waa haysta kuwa marka waa usii tababaran kartaa marka oo takhasus gooniya waa markaas marka cashirkan labaad caawa halkan ayuu ku egyahay nagasta cashirkeena kale ayaa isku soo laaban doonaa